soo dhawaada saaxiibayaal sharaf iyo karaamo meel kasta oo aad joogtaan waa idin soo dhaweynayaa warar degdeg baan idin hayaa dagaal u dhaxeeya ciidanka beesha ciise iyo kuwa samaroon ayaa goordhow waxa uu ka qarxay deegaan la yiraahdo il carmaale oo ka tirsan gobolka Salel deegaanka il carmo oo dhanka koonfureed ka xiga tuulada Xuseen Jidhi ee gobolka Salel waxa saaka aroortii hore ka dhacay dagaal xoog leh oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo sidoo kale kooxo kale dadka deegaanku kuwa ciise ama kuwa samaroona horta warbaahinta gobolka Salel wax ka qortay aad baan ula yaabay dadka deegaanka kulaha war ciidanka ciise ee beesha samaroon dhaha warka cadeeya warar hordhaca oo ay heshay warbaahinta waxay tilmaamayaan in kooxihii weerarka labada jiha soo qaaday ee beesha samaroon dhagta dhiiga loo daray iyada oo qaraxyo waaweyn iyo dagaalo toos ah ay dhex mareen dhinacyada dagaalamay xogahan helayna waxay tilmaamayaan in daryanka hubka iyo qaraxyada si weyn looga maqlayo tuulada Carmaale iyo Xuseen Jidhi aagaas ilaa hadda la soo warinayo in tacshirada kooban laga maqlayo dagaalkii halkaas ka bilowday dabcan wuxuu ku tusinayaa in dhinacyada halkaas ku sugan ay wali awoodaan in ay si dagaalamaan isla markaana ay xaaladdu faraha ka baxdo tuulada Xuseen Jidhi iyo deegaanada hoos yimaado oo iminka dagaaladu ay ka socdaan bilo ka hor waxaa la sheegay in halkaasi laga sameeyay howlgal ciidanka Somaliland oo hubka dhigis ay ku tilmaameen laakiin xogaan helayna waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saac la soo dhaafay halkaasi dagaalo qaraar ay ka dhaceen isla markaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan deegaanka hadda ka socda banaanka Xuseen Jidhina waxaa la soo warinayaa in ciidanka samaroon ay qaadeen laakiin kuwa ciise oo dabcan heegan sare ku jiray ay dhagta dhiiga u dareen isla markaana ay dileen xubno sarsaro oo ka mid ahaa kooxdii weerarka soo qaaday ee duleedka magaalada ku sugnayd Somaliland si cad bay ugu fashilantay in ay soo afjarto ama ay ka hortagto dhammaan qorshayaashii iyo sidoo kale howlgalladii halkaasi ka jiray iyada oo xogaha la helay ay tilmaamayaan in Somaliland ay si cad u sheegtay isla markaana ay warbaahinta la wadaagtay inaysan u dulqaadan doonin oo aysan yeeli doonin in ay kooxo hubaysan halkaasi ku sugnaadaan taasi oo dabcan ku tusinaysa in ciidanka Somaliland ay dhowrkii bil ee la soo dhaafay si cad ugu fashilmeen sidii colaadaasi loo soo gabagabeyn lahaa laba sargaal oo sarsaro oo ka tirsan ciidanka beelweynta ciise ayaa warbaahinta dirdhaba waxay u sheegeen in ay Somaliland dabin u dhigtay beesha ciise isla markaana ay ka warqabaan shalayna waxaan u jeeday ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cabdalla Sandheero oo aflagaadeynayay xurmad leh ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim runtii aad baan ula yaabay habdhaqankaasina weligay intaan warbaahin ku dhex jiray habdhaqan noocaas oo kale ama aanan arkin iyo qaabkay nimankaasi u dhaqmayaan waxay ahayd xataa in bahasha ay xeeriyaan oo si qurux badan loo dhigo laakiin hadda xogta iyo macluumaadku waxa ay tilmaamaysaa in dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada iyo culeysyada halkaasi ka jira rag saraakiil oo aan kala hadlay oo ka tirsan ciidanka Somaliland waxay warbaahinta la wadaageen oo ay u sheegeen in ay og yihiin isla markaana ay la socdaan colaadda halkaasi laga hurinayo iyagoo sheegay in ay jawaab ka bixin doonaan laakiin dagaalka hadda socda ilaa hadda lama oga khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawacay uu sababay walow maalinka ka dambeeya aan arkayno in dagaalka ciisaha iyo samaroonku uu yeelanayo weji ka xun wejiyadii hore dagaaladu awal waxay ka dhacayeen dhankan iyo xeebaha waa la iskala soo tallaabay Boorama la isla tagay aaga dawladda Dixda Sheekh Awaare waa la iskala soo tagay hadda Xuseen Jidhi oo Salel baa la isla marayaa marka dambana waxaan arki doonaa Djibouti iyo Somaliland oo madaxa isla galay oo midba midka kale uu ku eedeynayo ama uu ka cabanayo in dagaaladan iyadu ay dabada ka riixayso ama iyagu ay ku lug leeyihiin waana si saxda waxa halkaasi ka jira ee soo socda ee aan ognahay bay waxaas noqon doonaan si walbaba ha ahaatee arrimahan iyo kuwa kale waxay ku soo aadayaan iyada oo dagaal daraad uu ka dhacay Ashcado iyo sidoo kale Gaarisa dagaaladaasina dadka arrimahan la socdaahi waxay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwo abaabulan oo la rabay dadka deegaanka in lagu kala dilo maadaama ciidanka Somaliland ay weerar madaafiic fuliyeen walow markii dambe la sheegay Somaliland inay garowsho ka bixisay weerarka halkaasi ka dhacay in warbaahinta Somaliland iyo xataa madaxda Somaliland ay aflagaadeeyaan ugaaska guud ee beelaha ciise dabcan waxay ku tusinaysaa in ay xaaladdu adag tahay oo meel xun ay marayso isla markaana maalinka ka dambeeya ay jawigu isbedeli doono oo ay xaaladdu tagi doonto meel adag oo waxba laga qaban karin
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa 2 maalmood ka hor la hadlay rag saraakiil ah oo uu u sheegay in uu u baahan yahay in xal waara laga gaaro waxyaabaha la isku hayo laakiin xogtan helena waxay tilmaamaysaa in taasi ay fashilantay isla markaana ay socon weyday markana ila daawada muuqaalkan marna waan isweydiinaa waxaan leeyahay malaha ma bedelan markii ugaaska la dooranayay 10kii bay ahayd ma dhalan baan u maleeyaa hooyo uurka ku gudsiday wasiir Cabdallah waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamaadaa doqon maalintay iyo geesi milisu barto way isku meerdiiday waxaad iskaga reebtay rarkiina tiraa ugaaska beesha ciisayna daflagaadayso waarday adiga ma baahna adiga wax alla wuxuu kaaga baahan yahay ma jirto annaga aqoonsan annaga jecel UNESCO lagu aqoonsan yahay kana waxa aqoon kaaga baahan yahay ma jabu annagu mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leenahay marnaba ma ogolaanayna ugaaskeega xurmada iyo sharafta leh la aflagaadeeyo dhakhtarna kuma qabno caafimaad kuma qabno waxba kuma qabno wasiirkii ugu yaraan naga siisay Soomaaliland waxaas wax ninka wasiirkii ugu yaraan naga siiyay haade oo anagu qalmi anagu gobolka Soomaaliya iyo gobolka Awdal degnaa handara caga juglayn iyo anigu darayna ma aqbalayno halkan jooga waa gobolkii Salal anigu waa Nasra Sheekh Ibrahim Araye من هند كميديا هي وحاي مهدا لكن ويكفل سويد حن آدو حماني هذا الكسوية راي وسير عبد الله وقال دمه هرتي بول شيء سبحيان له ومركه وجوه الرئيس هذا هو الرئيس ومال مصطفى محمد إبراهيم حرمر له وحويا الرئيس ومال الله وحنا لقوا على مساري سيدا تاهر تنية قشو بول شيء استقدقنا وينك بحسه وآد قروح بدن كده لو أبو هذا القادم تكلم واحد كعرانة يساقف كعيسى كويراني وجاس كا أن كدم بيا وواج سجان حكومة سجان كدم بينا شلون ما كهال كنت ما كل جود دورني تدبي تمنجر بوها ما تدور يسود وين ما شاء الله تبارك الله والحكومة يا سجان دبتشوك سنة صغير وكبير عيسى يساقو كدم بيا وجاس كحرمة ضله أيو كدم بيا نفس هذا وشيء كيف بدنا بعد قال يسام كداون إننا ورجاري ساتكتشله يقول صور ما كان على ميلا هذا أو شراع وين أو يقول صور ليرا هذا اللي يقول صور يا جدال وحلقة جبية جريو تكيب جبية سواق هذا ده إحنا ما سواق هذا ولا ضدنا هذا يا سواق ده الدولة دحرته ليرا قلبي يقول كيف كان قال شوك سعبد الله شلبا أو دم بيسوميد محل سيسي ده اللي يربط قرط waxay sameysay init labada beelood ee meesha isku haystay dhagax bay isku dagaalamiyeen adna waxaad keentay ciidankaagii oo rasaasida qof baa ku dhintay labada qolo meesha joogto qof baa dhiman lahaa ku yaro samaroona dhintay Allah u naxariisto dawladda dishay 8 inan iyo 7 qori baad la qaaday ayaad la qaaday ma dhagax baad la qaaday namadii yaa la dagaalamay ما جيت بعد قاضي ما عادي كل دجالمين ما كان ميت كذا أدو قد شيء بعد لا قاضي أو ملك الريه كدله عندنا هنا صدق دقة إن الدولة دو حقوق قبته وسير كأقلدن هو كان في رسالة وحنا ملا مدحوينها بكدم بيه شو كانوا كسر دقة يحبط ودعوانا يوم هبين كيف تكتوك ملا عبد الرحمن دعوة مدحوينه وحنا كلنا هاي مسؤولية way ku saaran tahay shacabkii aad u dhaaratay mas'uuliyadeedii way ku saaran tahay bari markay masiibadu ka dhacday go'ad baad qaaday waxa kaaga dhacay inaad xeebta go'ad u soo qaado haba noo soo qaadanana go'as oo kii dhiiga noo soo qaado si aan isku dhamayno labada qole ee sida fiican isku diraysiin si ay isku dhamaadaan waxaan ka rabnaa mudane madaxweyne go dhiig leh oo cas oo sida uga dayso cadaan cidii umaad qaad aasho ay caday waa waadax waxaad ku shaqaynaysaa to aanan garanaynana tii dhaarta maaha ee kitaabka ugu dhaaratay ummadda aad ku dooratay ee halay doorta lahay aan ka codsanaynaa madaxweyne inaad ummadda sinto dhegana noo yeelato lameantii iyo waxgaradkii isaaq banaanka ay socdaan halay xiboo ahaana waad qaadatay mas'uuliyad waxaad ka dhigatay wasiiro war lagaanta noo soo qaad wax kala saaraya midowgii cadaanka kala garanaya mudane madaxweyne aan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad ciisuhu waa reer Soomaaliland hanagu riyoonina meel kala tagno dadka dhuumadooda ku jira riwaayadaha dhigay shaqo kuma liinana waxaan nahay dad bareera wadankii ay
كن نولاين ودشين سومالي لان ولقي ميلك لو ما صعنانو نفس هذا وشيك سومالي لان تنوحن لا وحي لبين ايه wax kala garanay bahalla talse madaxweynaha iyo wasiir dhifiqiya intii kala u doortay oo bal wax ka soo jawaabaan su'aalaha waana sugaynaa jawaabta haddaan nahay haweenkii degmadan xariirad ee ciise aabahayana waa lama taabtaan kuwa aad leedahay anaa xukuma isaga kaasi xukuma isagay ka qaataan amarka hadday ka qaadan waayeen dhagax baa lagu dilayaa xitaa kuwa ugaaskooda hadday u joogsan waayaan afartaa waan ka marnaa dhagax baan noo kaga qaadayna anaku waxaan nahay haweenkii degmada xariirad gaar ahaan gobolka Salal waxa weeyaan dadka wuxuu day maxay haydaye wasiirka arrimaha guduhu 8 jeer ama 9 jeer hadayna ka badnaynba gobolka Salal iyo gobolka Awda intaaba wuxuu mashruuca ku soo qaataa mar wali hagardaamo oo beesha ciise oo daawac u geysto intaaba anaku waan eegaynaa ma hadli garanliin waa uma jawaabi garanliin waan dhageysanaynaa anaku inteeda badan ma nihiin dadka iska hadloon laakiin dadka ilaahay dusha iyo oo nabada siiyay baan nahay waana la og yahay taas wixii ka dambeeya waxa weey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland indhaha lagu